iyadoo qisaastu ay ummadda muslimiinta u tahay nolol oo ay axkaamtooda ka mid tahay ayna tahay amar rabbaaniya oo ilaahay qur-aankiisa inoogu bayaamiyey ayaa haddana xaqiiqooyinka ku saabsan sababta dadka loo qisaaso subaxnimada hore waxay tahay arrin xidhiidh la leh aragtiyo diimeed iyo kuwa dhanka qabaqaabada iyo fulinta xukunkaasa haddaba iyadoo dunida reer galbeedku si kastaba ha ku xukumeene ay badankoodu fuliyaan dilalka noocaasa xilliga saqda dhexe ee habeenku kala baran yahay ayaa muslimiintuna dhankooda waxay badanaa ku fuliyaan dadka xukunkaasi shareecada ah uu ku dhaco xilliga subaxnimada hore barnaamijkeenana waxaynu ku soo bandhigaynaa qaar ka mida sababaha keenay go'aanka ay muslimiintu wakhtigaasi gaarka ah ee subaxnimo u qaateen ugu horrayn in qofka xukuman lagu fuliyo dilka goor hore oo subaxnimo ahi waxay fursad u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaankaasi iyo ehelada marxuumku in ay kala guddoobaan meydka iyo in isla maalintaaba la aasi karo qofkaasi iyadoo maalintii intii badnayd ay hadhay taasoo waafaqsan shuruucda islaamka ah ee caddaynaysa in la karaameeyo meydka oo sida ugu dhaqsaha badan loo aaso xilligaas subaxnimo waxaa laga aaminsan yahay inay tahay marka uu shakhsiga aadamahayi ugu deganaan badan yahay taasoo ka caawinaysa in qofkaasi uu iska yareeyo warwarka badan iyo baqdinta kaga iman karta falka lagu fulin doono deganaanshaha oo sidoo kalena saamayn la leh dadka fulinaya qisaasta oo ay suuragal u noqon karto inay si nabadgelyo ah ku fuliyaan falkaasi in qofka ku xukuman dilka lagu fuliyo subaxnimada hore waxay kaloo ka caawinaysaa inuu sii tukado salaada oo tiir muhiim ah ka ah diinta islaamka dabeetana uu ilaahay hortago isagoo ficilkiisii u dambeeyey oo cibaado ahaa